shirku wuxuu ka bilaami doonaa halkii shalay uu ku joogsaday halkaasaan ka bilaabi doonaa waxaa shalay ay noogu joogtay innaga oo soo gudbinay su'aalo kooban oo labada daraf weydiinay in dhalinyaradii hubka isu sidatay la kala qaaday oo la kala diray iyo in dhinac walba ergooyinkoodii ay dhan yihiin su'aasha hore si isku mid ah ayay labada daraf uga jawaabeen waxaanay u sheegeen shirka qiimaha leh in ciidamada la kala qaaday allana waxaan ka baryaynaa inaana isku soo noqon su'aashii labaad ee shalay ay ahayd ma la isu dhan yahay si shirka loo bilaabo ergada qiimaha leh ee suldaan cismaan uu hormoodka ka yahay iyo salaadiinta kale qiimaha leh dhigiisa ah waxay shalay noo sheegeen inaan waxba qabyo ka ahayn jaanibka labaad oo ah jaanibka uu shalay u hadlayay hormoodkana uu ahaa suldaan cabdilaahi suldaan cali wuxuu shalay sheegay in xubin muhiima ay ka maqan tahay oo ah boqor cismaan aw maxamuud boqorkiina waa joogaayo ma idiimid ma odhanayno ee su'aasha suldaan cabdilaahi u taalla iyo cidduu wakiilanayaaba inkastuu culus yahay waxay tahay haddii boqorku yimid saaka cid kale miyaa idinka dhiman su'aashaas waa in laga jawaabo saaka annagu waanu dhannahay qayb kastoo ay tahay suldaan cismaan oo shalay shirka aanu joojinana wuuna soo gaadhay boqor cismaan su-aasha maxay ahayd halba marba dee meel baa la joogaa horta marka u horeysa waxaanu idinku bishaaraynaynaa wax naga dhiman oo beeshan xaggan ka dhimani ma jirto taas waa qodob weeye hawshu waa inoo dhan tahay meel qurux badan bay maraysaa waa inoo hagaagsan tahay laakiin waxoogaa yaroo farsamo ah oo xagga qoraalka la xidhiidha xagga qoraalka hawshii lasoo qori lahaa la xidhiidha ayaa maxay ahayd qabyo yari ku jirtaa sidaa daraaddeed waxaanu doonaynaa maanta annaga oo ergadiinnan iyo waayeelkiina sharafta leba aynu fadhino dee hawl culus baynu haynaadoo kolley maalin iyo laba iyo cuduraadku waa iska imimanaya marka kolley xagga iyagana kuma badnayn waxaanu maanta codsanaynaa xogaaga iyo dhammaystirkiisa inaad naga aqbashaan idinkoo aad iyo aad u mahadsan suldaan cusmaan walaalkeen waxay la tahay soo jeedintiisa waan maqlaynaa hoggaanka shirguddoonka ayaanu dhiibi wixii ay ka odhanayaan ereyga fiican horta waxaynu isleenahay arrimaha noocaas iyo kulka yimaadaan dhammaanteen shirguddoonku wuxuu qaabilsan yahay tandiimka habaynta iyo isudubiridida laakiin kama lihin ergooyinka wax gaara kama lihin waxaan soo gudbinayaa arrinkaa in ergooyinka qaybo ka mid ah ay ka hadlaan annagu shirguddoonkuna aanu ka dambayno maadaama qolo dhinac laba cisho loo nagaaday qolada kalena in maanta loo nagaado xaq bay u leeyihiin marka waxaan leeyahay ardaaga maanta soo jeediyay arrinkaa annagu haddaan ergadiinahay dhinacayaga waanu ku taageersannahay in maanta loo nagaado si qodaxda looga guro waxa aynay hadhow dhibaatay nooga iman oo dhammaystiran aynu gallo waanu ogolay haddaan ergadan waxaan u malaynayaa darafkan haddayna ka codsaday waa markii koowaad ayna ka codsadaan dhowr jeer ilaa 2 jeer oo 5 casho ah ilaa shalaya baa darafka kale aynu siinay kunna waxaan qabaa inaynu siino cadaaladuna saasay ku jirtaa qatay arrinkaa inuu sidaa u dhacayo way noo muuqato waxaan si ku ixtiraamayno ku sharifaynay haddaanu shirguddoonka nahay in ergooyinka ra'yigooda mudakarka ayna la midka ah in ra'yigooda iyadana aragno waxaan gudbinayaa garaadka ayaan gudbinayaa garaad jaamac Ismaaciil wax fiican baa muuqda xaajada baa haddii lagu degdego iyo haddii dib loo dhigo laga fiirsado te hore waxa lagu maamaahay haddii degdesiyo door dhalankaasina kiish lacag ay dhalaan laakiin aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay
waxa wanaagsan ee idinka muuqda ee walaaltinimada ah iyo miisaanka idinka muuqda ee aad doonaysaan in aad wax walba ku soo ururisaan annagu haddaanu shirkadoonka nahay waa idinka aqbalnay sidaa aad hadda maqlayseenna go'aanka waa qaadanay laakiin waxaan ku darayaa xaajadaasi way soo ururtay biri aroortii 9 oo buraa waa la bilaabayaa 8 barka waa la bilaabayaa mar dambe iyo dib u dhig dambe iyo hawl dambe ma ay dhacayso